markuu tago kalaabiyada caadiyan dadku cabitaan iyo arrimo kale ayay u tagaan balse 20 jirkan wuxuu iibsaday dhammaan kalabka oo dhan isaga oo hurdada ka kacay subax wuxuu sameeyay khiyaano yar oo aad u fudud wuxuuna ka baxay isagoo haysta in ka badan 230 milyan kaliya hal email fudud ayaa wax badan bedelay khiyaano cajiib ah ayuu sameeyay ma u suurta gashay inuu si dhab ah uga baxsado dambibaarayaasha iyo FBI-da kahor intaan la gaarin baabuurta qaaliga ah guryaha dabaqyada ah iyo gubitaanka ama qamaarka $5 milyan ee kalaabiyada habeenkii haddaba haddii aad rabto inaad xaddo 230 milyan hal shay ayaa muhiim ah bartilmaameed sax ah inaad hesho yacni waayo cidda la dhacayo laakiin bal ka fikir hal daqiiqo haddii aad damacsan tahay inaad qiyaamayso qof ku jira crypto miyaanu Sam Leeson ahayn qofka ugu xun ee aad dooran lahayd Marlon Lamb isagoo jiray 20 sano ayuu noqday taajir doqon ah waxa uu ahaa mid si nacasnimo u dhaqmay waxaana ka hadlaynaa G-Wagons Lamborghini Ferrari markuu tago kalaabiyada caadiyan dadku cabitaan iyo arrimo kale ayay u tagaan balse 20 jirkan wuxuu iibsaday dhammaan kalabka oo dhan qaybta ugu yaabka badan sheekadeena waxay ahayd inuusan ahayn qof ku wanaagsan tiknoolajiyada mana lahayn shirkad $1 bilyan ah ama muusan bilaabin iibka ganacsiga Bitcoin-ka 2015 isaga oo hurdada ka kacay subax wuxuu sameeyay khiyaano yar oo aad u fudud wuxuuna ka baxay isagoo haysta in ka badan 230 milyan oo Bitcoin ah ma jirin jabsasho caalami ah ma jirin barnaamijyada programming-ka ma jirin qodista Bitcoin-ka ama loo yaqaan mining Bitcoin kaliya hal email fudud ayaa wax badan bedelay khiyaano cajiib ah ayuu sameeyay iyo 2 xeeladood oo adag si uu u fuliyo mid ka mid ah tuugooyinkii ugu waaweynaa ee taariikhda lacagta kriptaha haddaba sidee ayuu wiil 20 jir ah oo aan la aqoon ugu bedelay noloshiisa hal habeen Bitcoin millionaire waxa ugu muhiimsanaa ma u suurta gashay inuu si dhab ah uga baxsado dambibaarayaasha iyo FBI-da tani waa sheekada waalida ahayd ee wiil yar oo Minecraft ciyaara oo la oran jiray Marlon Lamb uu xaday in ka badan 230 milyan oo lacagta digitalka ah kahor intaan la gaarin baabuurta qaaliga ah guryaha dabaqyada ah iyo gubitaanka ama qamaarka $5 milyan ee kalaabiyada habeenkii Marlon Lamb waxa uu ahaa wiilka soo jeeda Singapore arday ka tirsanaa United Secondary School ma ahayn wiil u dhalay aabo bilyaneer ah waxa uu ahaa wiil jecel ciyaarta Minecraft-ka waad maqashay sax Minecraft-ka aad buu ugu dheeraa oo waxay ahayd ciyaar uusan ka baaqsan karin gaar ahaan waliba nooca tartanka ee la yiraahdo Cosmic PvP ciyaartan waa noocyada game-ka noociisa ugu khiyaanada badan oo ciyaartoygu aysan kaliya ku dagaalamaynin seefaha iyo gaashaanta balse ay khiyaanooyin sameeyaan saaxiibadooda u gacangeliyaan cadowga iyo xeelado kale oo tuugooyin si farsameysan looga dhex sameeyo gudaha ciyaartan waa ciyaar ku saabsan khiyaano iyo maran habaabin waxaana ay ahayd goob ciyaareed ku haboon Marlon halkaasay waxyaabuhu ka bilaabmeen inay xiiso yeeshaan sababtoo ah iyada uu ku ciyaarayay Cosmic PvP Marlon wuxuu la kulmay qof lagu tuhunsan yahay inuu noqday saaxiibkiisii dambiyada Daniel Serrano waa wax laga yaabo mid ka mid ah tuugooyinkii ugu waaweynaa ee kriptaha taariikhda uu ka bilaamo 2 dhalinyaro ah oo dadka ku khiyaanaya Minecraft ugu dambeyn xiisihii Marlon ee Minecraft-ka wuxuu isku bedelay crypto ma ahayn kaliya inuu maalgeliyo wuxuu bilaabay inuu barto nidaamka ay u shaqeyso oo dhan wuxuu daraasiyay sida uu u shaqeeyo waalidka sida lacagta u socoto iyo sida dadka runtii lacag uga helaan balse waxa ugu muhiimsan sida dadka loo dhaco wuxuu saacado ku bixin jiray Reddit iyo Discord isagoo daawanaya dad lumiyay dhammaan lacagtoodii sababo la xiriira Coinsbane ah weeraro phishing ah iyo heshiisyo laga yaabo inay ku saleysan yihiin xatooyo wuxuu si dhaqso leh u ogaaday in lacag badan laga sameeyo dhanka tuugada ee Bitcoin-ka marka loo eego ka ganacsiga saxda ah haddaba haddii aad rabto inaad xaddo 230 milyan hal shay ayaa muhiim ah bartilmaameed sax ah inaad hesho yacni waayo cidda la dhacayo Marlon ma uusan raadinaynin maalgeliye caadi ah wuxuu raadinayay bartilmaameedka ugu fiican qof leh waalid weyn qof aad ugu kalsoon ammaankiisa xitaa uusan garan doonin in la qiyaamay ilaa ay dib ka ogaadaan ugu dambeyn Marlon wuxuu helay Sam Leeson hal abuure ka tirsan Silicon Valley nin dhisay maalgeliyay una koriyay qaar ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyada ugu awoodda badan ee adduunka Leeson ma ahayn qof crypto isugu koobay ku raaxaysta Bitcoin-ka wuxuu ahaa designer dhaqaalaha digitalka ah wuxuu ahaa mid taajir ah hantidiisana lagu qiyaasay bilyano dollar laakiin bal ka fikir hal daqiiqo haddii aad damacsan tahay inaad qiyaamayso qof ku jira crypto miyaanu Sam Leeson ahayn qofka ugu xun ee aad dooran lahayd inaad tiraahdo ninkan wuxuu fahamsanaa amniga tiknoolajiyada wuxuu lahaa erayo sir ah oo aad u adag qofna uusan garan karin lakabyo badan oo ammaanka waalidkiisa ah wuxuu waalidkiisu la mid ahaa Fort Knox laakiin waa
saabsan arrinta ku saabsan amniga, waxaa laga yaabaa inaad u malayso in si aad wax weyn u fuliso aad u baahan tahay inaad noqoto khabiir sare oo hackar ah, laakiin arrintu sidaas maba ahayn. Marlon wuxuu u baahnaa hal shay oo keliya: email fudud inuu u diro Sam Leeson. Marka sidaan bay wax u dhaceen. Talaabada koowaad: cabsi ku beerid. Qaanuunka ugu horeeya ee lagu qiyaameeyo qof heerkaas ah waa inaad ka dhigto inuu u maleeyo in noloshiisa oo dhan ay khatar ku jirto. Marlon iyo Serrano waxay si fiican u yaqaaneen in hantida ugu weyn ee Sam aysan ahayn lacagtiisa ee ay ahayd isu kalsoonidiisa. Wuxuu ahaa nin ku faani jiray amnigiisa dijitaalka, sidaas darteedna waxayba garaaceen meesha ugu xanuunka badan, waana sumcadiisii. Waxay sameeyeen digniin amni oo been ah, taasoo u eg inuu akoonku ka yimid Google-ka, taasoona u muujinaysay akoonkii Sam in si dhab ah loo jabiyey si ay uga dhigaan mid aad u qanciya isaga. Waxay adeegsadeen servero proxy iyo VPN si ay uga dhigaan in iskudayada gelitaanka ka soo jeedaan Ruushka ama Waqooyiga Kuuriya. Emailku wuxuu u sheegay Sam inuu islamarkiiba bedelo ereyga sirta ah si uu akoonkiisa u badbaadiyo. Isaga oonan laba jeer ka fikirin, Sam wuxuu gujiyey linkigii, kaasoo u horseeday bog been abuur ah oo aad ugu eg yahay shaashadda gelitaanka Google-ka. Wuxuuna qoray ereyadii sirta ah uu lahaa, kadibna wuxuu geliyey mid cusub, wuuna dhameeyey. Si bilaash ah ayuu Marlon ugu dhiibay ereygiisii sirta ahaa. Talaabada labaad: Marlon iyo Serrano waxay hadda haysteen furayaashii taajirnimada. Waxay galeen akoonnadii Sam, waxayna isla markiiba bilaabeen inay baaraan wax kasta oo ay heli karaan: emailada, faylal muhiim u ahaa, fariimo la isweydaarsaday. Ugu dambeynna waxay heleen dahabkii dhabta ahaa, warbixinno bangi, diiwaanno isweydaarsi, iyo waxa ugu muhiimsan, koodadkii soo kabashada akoonnada ee kribtaha. Kuwani waxay la mid ahaayeen maskaxda dhan ay ku taagan tahay hantidiisa ee kribtaha. Markii ay heleen koodadkii, waxay iska indhatireen dhammaan lakabyadii amniga ee Sam samaystay. Waxay galeen akoonnadiisii kribtaha, waxayna bilaabeen inay lacagihii u kala wareejiyaan wallets yaryar oo ay horey usii diyaarsadeen, iyaga oo lacagta ku faafinaya meelaha kala duwan. Waxayna rajeynayeen in si aad ah loo waayi doono raadkeeda, oo sidaasi darteedna saacado yar gudahood in ka badan 230 milyan oo Bitcoin ah ayaa ka baxday akoonnadii Sam. Wax digniin ah ma jirin, wax ogeysiis bangi ah ma iman, wax risk warning ahna muusan helin. Keliya copy and paste ayaa hantidiisa oo dhan looga dhacay. Aniga oon hantidaas haysan ayaaba iska ilaaliyo linkiyada. Bal ka waran sida fudud ee loo dhacay ninkan. Daawade, sidaan ula yaabay ninkan doqonnimadiisa, adiguna ma ila dareentay? Haddii aad intaan nala soo gaartay, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto, muuqaalkana like noo saarto, please commentiga hoosna noogu sheeg waxaad dareentay. Balse dhammaadka ayaaba ka siyaab badan waxaan oo dhan hayga tegin. Keliya wiil Minecraft-ka ciyaari jiray oo 20 jir ah ayaa noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan caalamka. Markaas maxaad samaynaysaa haddii aad subaxdii toosto adiga oo sameeyey mid ka mid ah khiyaanooyinkii ugu waaweynaa ee kribtaha abid la sameeyey? Waa hagaag, qof caadiya wuu dhuuman lahaa, sax? Laakiin haddii magacaaga uu yahay Marlon Lamb, jawaabtu way sahlan tahay. qarash garee sida inaysan beri jirin, yacni aadan ogeyn halkaad ku dambeyn doonto. Kadibna dhig wax walba baraha bulshada si joogto ah adigoon xitaa isqarin. Habeenkiina kalabyada wareeg, qamaar $5 milyan ana bixi. Maalmo gudahood markii uu dhacay khiyaanadan aadka u weyn, wuxuu bilaabay inuu lacagta sida waalan u isticmaalo. Wuxuu u socon jiray kalabyada habeenkii isaga oo halkii habeen ku bixin jiray $5 milyan. Kadibna waxaa yimid baabuurtan Lamborghini dahabeysan, Ferrari gaar loogu sameeyey isaga, iyo Porsche oo ka qiimo badan $3 milyan midkiiba. Dabcan muusan qarsoomin, wuxuu xitaa kireystay guri weyn oo qiimihiisu ahaa $100,000 bishii. Marlon ma uusan istaagin, wuxuu iibsaday saacadaha quruxda badan ee qaaliga ah, dhar qurux badan, kabaha ugu qaalisan dunida, wax kasta oo gacantiisa galo uu iibsan jiray. Waxaa xitaa la sheegay inuu iibsaday doon Lamborghini ah oo xitaa uusan ogeyn in shirkadda Lamborghini samayso doonyo. Wuxuu haystay lacag aan xadidnayn. Bitcoin-kiisu wuxuu u egyahay sida dhaqaalaha guud ee waddan yar, laakiin iyada oo wax walba online-ka soo dhigayo oo uu qarash gareynayo si xad dhaaf ah, hal mashaakil ayaa la iska ilaaway. Qof walba wuu daawanayay. FBI-du horey bay u raadinaysay raadkii lacagta xaday, waxayna si dhaqso isugu xireen qarash gareyntii Marlon iyo lacagihii Bitcoin-ka ee la waayay. Markii uu Sam la xiriiray hay'adaha ammaanka, waxay isla markiiba bilaabeen inay raacaan raadka lacagta. Waxay heleen waxyaab leh 230 milyan oo Bitcoin oo hal mar laga saaray wallet-kii Sam. Lacagtaasi isla markiiba waa la kala jebiyey oo waxaa loo sii mariyey adeegyo la yiraahdo mixing service si loo qariyo halka ay aaday lacagtaas. Dhowr muuqaal horeyna waan idinku sheegay, markasta oo la dhaco Bitcoin waxaa la sii marsiyaa mixing service.
waana hab lagu lumiyo lacagta la xaday iyo dijitaalka raadkooda si aan loo dabagelin. Laakiin Marlon iyo Serrano waxay ahaayeen kuwa dayacan oo aanan feejignayn. Waxa ay lacag aad u badan si toos ah ugu shubeen goobaha isweydaarsiyada ama lacagaha la isku sarifo si ay lacag cadaan ah uga dhigaan. Waxay ahayd arrin muuqata, waxay ahayd nacasnimo aad u ballaaran, waxayna la mid ahayd sidii ay qorshahan oo dhan ugu diyaariyeen ciyaarta Minecraft-ka. Sidaas darteed, ma aysan qaadan waqti dheer in FBI-du fahamto waxa socda. Dad badan waxay u haystaan in Bitcoin-ku yahay mid qarsoon, laakiin dhab ahaantii Bitcoin-ku ma ahan mid qarsoon sida dadka u maleynayaanna. Dhammaan macaamilada waxaa lagu diiwaangeliyaa blockchain-ka, mana tirtirmayo abidkiis. Subax ka mid ah maalmahan bisha Sebtembar sanadkii 2024, Marlon ayaa hurdada laga kiciyey, waxaana lagu xiray isla goobta. Saaxiibkiisa Serrano isna meel fog ma gaarin. Waxaa lagu qabtay garoonka Lux isaga oo ka soo noqday safar uu ku tagay jasiiradda. Dowladdu si degdeg ah ayay u xayirtay akoonadooda, waxayna qabatay dhammaan hantidii ay heli karto. Wax kastoo ay iibsadeen waa laga qaatay. Soo dhagartooda halkaas ayay ku ekeyd. Markii fiidiyogan la sii daayay iyo macluumaadkan, Marlon iyo Serrano weli waxay sugayeen maxkamadda. Waxa kaliya aan kuu sheegi karo waa qiyaasta waxyaabaha ay wajihi karaan. Eedeymaha khiyaanada ilaa 20 sano xabsi ah ayaa lagu muteysan karaa. Lacag dhaqis sharci darro ah oo 20 sano oo kale ayaa iyadana lagu muteysan karaa. Aqoonsi xatooyo ugu yaraan ayadana 5 ilaa 10 sano ayaa lagu muteysan karaa. Iyo dabcan ganaax lacageed oo aad u culus oo ku saabsan khasaarihii ay dhaliyeen. Haddaba lama helin dhammaan 230 milyan oo Bitcoin ah ee la dhacay ama la helayba. Waxaa weli jira malaayiin dollar oo maqan, kuwaas oo aanan la ogeyn meel ay jaan cirib dhigeen. Waxaa laga yaabaa in Milano uusan nacas ahayn oo uu u qorshaystay inuu isku difaaco lacagaha uu qariyay, amba waxaa suurtagal ah inuu dhab ahaantii nacas yahay oo lacagtu ay weli meel qabow ku jirto iyadoo ay sugaysa qofkii qaadan lahaa. Haddaba daawade, anigu waxaan aad ula cajabay sida fudud ee loo dhacay nin isku sheegay inuu yahay mid markaa amnigiisu aad u sareeyo. Adigu maxay kula tahay? Muuqaalkeena halkaas ayuu ku eg yahay. See you soon. Bye bye.